anigoo magacaygu yahay Edna Aadan Ismaaciil waxaan ka hadlayaa magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaan ummadda af Soomaaliga ku hadasho oo dhan meelay joogaanba aan uga dirayaa salaan kalgacayl salaan ixtiraam waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinka ku saabsan wada hadallada labada dal ee Soomaaliya iyo Somaliland in la wada hadlo waan soo dhaweynaynaa waa wax meesha yaalla ummaddu hadday wax ku muranto way ka hadashaa way ka doodaa heshiis bay ka gaadhaa wada hadalladu waxay dan u yihiin labada dal dadka ku nool dadka reer Somaliland iyo dadka ku nool dalka Soomaaliya waxay waliba dan u sii tahay dadka degan dalka Soomaaliya dadka Somaliland 30 sano horteed ayay waddankoodii ku soo noqdeen waddankii oo burbursan waxay u soo noqdeen dalkii oo lagaga tegay waxyaabahan qarxa waxay ku soo noqdeen hantidoodii oo burburtay ilaahay wuxuu la qabtay inay dalkoodii dhistaan intii baaqi u noqotayna dadkoodii ay daryeelaan ka soo celiyaan xeryaha qaxootiga dawlad u dhisaan dastuur u sameeyaan dawladdan maanta lagu faano ee dimuqraadiyadda ah ee xisbiyada leh ee xukuumad leh ee maxkamada leh ee baarlamaan leh ee guurti leh ee bayac mushtari leh ay dhistaan waxay dadka ku nool Somaliland ay awood u heleen inay dhallinyaradoodii wax baraan soo ceshadaan sharaftii iyo magacii iyo maamuuskii ay ummadda Somaliland ay lahayd magac wanaagsan oo lagu faano ayaa maanta ummadda Somaliland ay meel walbaba ay ku leedahay dawlado badanna ay ma jirtaan Somaliland waxay ka naxaysaa dadka 30 sanadood in ka badan ku nool Soomaaliya dalka aanu dariska nahay ee aan weli dawlad hagaagsan haysan ee aan nabadgelyo haysan ee deeq shisheeye uga timaada mooye dalkoodii weli uu yahay dal aan shicibkii nabadgelyo u seexan hantidoodu ay baylah tahay wada hadalladu waxay dan u yihiin maatadii laga tegay 30 sanadood waddankan loogu yimid ee ka haray dagaaladii ee ka haray burburkii ee ka haray xasuuqii iyo diyaaradihii dhibaatada u geysatay caruurtii aabbayaashood la waayey weli waa agoon haweenkii raggoodii la laayey weli waa meelay gambada dhigaan garan maayaan odayaashii caruurtooda la xasuuqayna weli waa goblan taasi iyadoo ay jirto ayaa haddana waxaanu aad uga damqannaa dhibaatada ka taagan dalkan aan walaalka nahay ee jaarka nahay ee Soomaaliya labada dal waxay ku walaaloobeen oo ay ku heshiiyeen aynu wax wada qabsanno iyadoo Somaliland ay waliba ka da'weyn tahay oo ay xornimo ka hor qaadatay ayaa waxay ku heshiiyeen aynu heshiino ummadaha af Soomaaliya ku hadla aynu isu keeno
kuwa Djibouti ku maqanay Faransiisku gumayso aynu soo xirayno kuwa dalalka kale ku dhex jirana iyagana aynu soo dhaweyno oo shanta Soomaaliyeed ayaa heshiiskii hore u ahaa dalkii Talyaanigu gumaysan jiray markuu isaguna uu qaatay xornimadiisii oo 5 cisho ka dambeysay xornimadii Somaliland iyadoo curadkii ah ka da'weyn ayay soo dhaweysay wada hadaladii lagu heshiiyey ee lagu dhisay jamhuuriyaddii Soomaaliya heshiiskaas mu ahayn mid Somaliland iyadoo ka da'weyn Soomaaliya ay ku qabsatay manu ahayn mid Soomaaliya oo ka da'yar Somalilandna ayaduna ay ku qabsatay heshiis laba dalo walaala ah ayuu ahaa heshiiskii markuu shaqayn waayay Somaliland la burburiyay 300,000 oo dad laga xasuuqay diyaarada cirkan loo gamay oo ay dadkii madaafiic la dhaceen hantidii burburiyeen waxay Somaliland dadkii ku noolaa qabiilooyinkii ku noolaa dadkii deganaa ay garteen inay xuduudii u dhaxaysay iyaga iyo Soomaaliya xidhaan oo dalkoodii dib u dhistaan wax dibindaabiye ah haba yaraatee Soomaaliya looma geysan wax aflagaada ah oo Soomaaliya loo geysana ma jirto haddii la cawdo oo la yiraahdo waxba nalaga xasuuqay aflagaada ma huwa xaqiiq caruurtii wali waa agoon hooyooyinkii abayaashii wali waa goblan marka aflagaada maahe waa hal laga wada hadlo oo cudurdaar hal laga muujiyo oo samir iyo iimaan hal la iska siiyo oo hal laga duceysto intaasoo kale aanay mar labaad dhicin wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ma aha qaar uguba wada hadalkii ugu horeeyay wuxuu ka dhacay dalka Ingiriiska 2012 waxaa joogay laba madaxweynihii Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynihii Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed laba dal oo jaara oo walaalo ah oo wanaag raadinaya ayaa sabab u ahayd heshiis kulanka qodobo badan oo lagu heshiiyeyna way jireen oo labada madaxweynaba ay saxeexeen shirkii labaad wuxuu ka dhacay Dubai 28 bishii 6 2012 labada madaxweyne waa joogeen haddana mar labaad waxay ku heshiiyeen in la sii wado wada hadallada laga bilaabay Ingiriiska qodobna wixii shirkii hore loogu heshiiyey shirarka labaad mid ay ku sii biiriyaan heshiisyo cusub mooyee aanay noqonin qaar lagu laabayo ama lagu laadayo heshiisyadii hore loo gaadhay loo saxeexay labadii madaxweyne ee markaa joogay Sheekh Shariif iyo Axmed Maxamuud Siilaanyo labadii haddana mar labaad bay heshiiska ay ku heshiiyeen shirkii saddexaad wuxuu ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga 13 bishii afraad 2013 waxaa haddana mar saddexaad joogay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ku heshiiyeen oo ay heshiisyadii hore ku dareen in nabadgelyada mantaqada ay meel uga soo wada jeedaan waxay ku heshiiyeen in deeqaha ka timaada qaramada midoobay ee mucaawinada ah si siman
loo qaybiyo oo dal walba intii loo qoondeeyey aan dalka kale iska hortaagin. waxay ku heshiiyeen inay wixii maxaan ku dhahay sirdoona ama wararka tilmaamaya meel nabadgelyo darro ka iman karto inay qaybsadaan oo isdhaafsadaan. waxay ku heshiinayeen in 9 cisho dabadeed inay mar kale kulmaan. shirkaas saddexaadna wuu dhacay, kii afraadna wuxuu noqday magaalada Istanbul 7 ilaa 9 bishii 7 2013. waxaa shirkaa lagu heshiiyey in kontaroolka cirka la wada maamulo, xaruntiisuna ay noqoto magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland, Jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynihii hore heshiisyadii uu galayna ay sii socdaan. waxaa lagu heshiiyey in wada hadalladii halkaa laga sii wado. shirkii shanaad wuxuu dhacay Istanbul ayuu 18 bishii 1 2014. waxaa lagu heshiiyey qodobadii 4 shiree hore lagu heshiiyey in kanna shanaadna intii la guddoomiyo oo lagu heshiiyo. waxaa lagu heshiiyey oo kale in shirka dambe uu ka dhaco meel qaramada midoobay iyo dalalka dhexdhexaadka ah ee si siman labada dal Soomaaliya iyo Somaliland ba dhexdhexaad ugu ah inay goobjoog ahaadaan. oo wixii shirarka ka qabsoomi waaya, go'aanadii ka soo baxay ka qabsoomi waaya, dalal daba geli kara oo markhaati ka noqon kara. waa lagu heshiiyey, waa la wada saxeexay. shirkii lixaad wuxuu noqday 22 bishii 12 2014. waxaa gogosha fidiyey madaxweynaha dalka aynu jaarka nahay, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Djibouti ayaa gogosha fidiyey. waxaa goobjoog ahaa madaxweynihii Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxaa goobjoog ahaa madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxay ku heshiiyeen qodobadii hore ee 5 shiree ka horreeyay lagu heshiiyey inay weli waafaq yihiin oo heshiiskii go'aanadii laga gaadhay sidooda yihiin, lana sii xoojiyo oo mar kale la ogolaado lagu heshiiyo in cirka maamulka cirka laga wado magaalada airportka Hargeysa ee Somaliland. qodobadii hore na sidoodii loo wado oo sidoodii ay yihiin. shirkii 7 waxaa mar kale gogol fidiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Djibouti. wuxuu dhacay 27 bishii 10 2019. waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland, anna xubin baan ka ahaa. intaasoo shirar waxaa loo galay hal wada hadlo oo heshiis hala gaadho oo wada hadalladu ha noqdaan qaar isbiirsanaya oo mid walba wixii lagu heshiiyey ay jiraan oo qaar lagu sii biirayo. waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalkan jaarka nahay Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Farmaajo, in qodobadii lagu heshiiyo
ee hore oo dhan uu wada buriyey oo intuu maalin soo toosay uu yidhi saxeexyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan heshiisyadii lagu heshiiyey waxba kama jiraan oo uu subax intuu soo toosay yidhi diyaaradaha laga maamulo magaalada muqdisho markaa waxaa isweydiin leh waxaa heshiis lala galaa qof qowl leh oo wixii lagu heshiiyey fulin kara waxaa isweydiin leh wada hadalladan iminka la rabaa ma kuwii horaa la ansixinaya ilaa halkaasay ka bilaabmayaane oo 8aad iyo 9aad iyo 10aad baa ku biiraya haddiise heshiisyadii hore ay noqdeen waxba kama jiraan dee waa gacmo daalis waxaa la doonayaa madaxweyne qowl leh oo wakaalad ka sita ummaddiisa oo shicibka Soomaaliya soo doorteen oo wixii madaxweynayaashii hore ku heshiiyeen fulinaya oo ixtiraamaya oo qowlkii uu ku fulin lahaa leh iyo awood uu ku fulin lahaa wada hadalladu halkii ay marayeen min 1 ilaa 6 isu soo dhawaansha dhacayay ummaddu way isu soo dhawaanaysay baayaca mushtarku wuu kala socdaa imikaba dhaawaca Soomaaliya halkan la keenaan ku daweynaa ardayda Soomaaliya ka timaada halkan wax ku barnaa ummaddu way isdhex gashaa Soomaaliya dalxiis markay ka cabsadaan halkan ay u yimaadaan dalxiis dadka Soomaaliya u dhashay halkan ay kula kulmaan dadkooda qurbaha uga yimaada waa ta la rabo isu soo dhawaansho wax wada qabsi waa ta la rabo Soomaalilandna way soo dhaweynaysaa ummadda Soomaaliya ee dhibta badan ay hayso ee 30 sano dhibaatada culus ay hayso inay dhibaatada ka baxdo oo mar uun dawlad yeelato saan anaguba dawlad u yeelanay inay mar uun nabadgelyo helaan saan anaguba nabadgelyo u helay in caruurtu noo korto oo dhalinyaradu wax noo barato ay u barato kuwa iyagu u bartaan oo kuwa iyagu say u koraan kuwaduna u koraan oo qaxootiga ka soo ururaan oo dalkooda ilaashadaan oo aanay u baahanin cid dalka u nabadgelyada u ilaalisa wax colaada oo dadka shicibka Soomaaliland iyo shicibka Soomaaliya ka dhaxeeya haba yaraadee ma jiro waxaan kalgacayl iyo walaalnimo iyo jaarnimo aan ahayn labada shicib uma dhaxeeyaan ee dawladdii lahayd waanu matalaynaa ayaa la garan laayahay si loola xaalo waxaanu ogol lahay in la wada hadlo oo wax la dhiso oo gobolkeena la dhiso oo nabadgelyada la dhiso oo baayaca mushtarka la sii dhiso waxaanu ogol lahay in dad dhexdhexaadii yimaadaan waxaanu ogol lahay in wixii nabadgelyo iyo horumar u soo kordhinaya mantaqadoo dhan inaanu ka qayb galno gacan ka geysano saanu 30 sanadoodba uga geysanaynay Soomaaliyana ku soo biirto dib u dhiska mantaqada dib u dhiska geeska Afrika oo aanay noqonin dhaawaca meesha kaliya dhaawac u geysata mantaqadan geeska Afrika dadka wada hadlaya waa inay ahaadaan dad matalaya labada ummadood aanay noqonin dad ama godob ka galay oo ama xasuuq lagu haysto oo xasuuq ka qayb galay oo burbur ka qayb galay oo dhibaato ka qayb galay maatadii Soomaaliland ka qayb galay in hadan la yiraahdo wada hadal baa la gelayaa shakhsiyaadkaas ma suura galayso aqliga ma galayso in dad Soomaaliland u dhashay oo caruurtoodii iyo dadkoodii iyo halka joogaan oo Soomaaliland aanan cidi ka lahayn oo caruurtooda in badan ka dhaliyay anigu shakhsiyanba inay ka soo jeestaan meel kale oo ay u galeen malaha hunguri geeyay malaha siyaasadii geysay ikhtiyaar bay u leeyihiin laakiin se uma hadli karaan kama qayb geli karaan wada hadallo Soomaaliya iyo Soomaaliland ilaa waa dad Soomaaliland u dhashay
oo inta anigu Soomaaliland ahay inteed la eg ahay marka waxa weeyaan dantu hal wada hadlo waa inoo dan oo dadka shicibka Soomaaliya ay dan u sii tahay ee aan 30 sano dawlad arag in wadankaas isu kala socdo ee burburka ku sii dhacaya maalinta ka dambaysa ku sii dhacaya uu ka yaraado oo dadkooda u soo noqdaan oo wax dhistaan oo shaqaystaan oo bayca mushtarkooda wataan oo nabadgelyadooda ka taliyaan oo dawladay raali ku yihiin doortaan oo qof walba cod iyo af uu ku soo saaro dawladdu rabo inay hogaamiso Somaliland dalkeedu waa nabad waa dad kalgacayl weyn u hayo dadka Soomaaliya ee dhibaatada weyn hayso oo aad uga naxayno marka wada hadaladii diyaar baa loo yahay hal is habeeyo qodobadii hore lagu heshiiyeyna hala soo bandhigo hal lagu dhawaaqo inay sidoodii u jiraan oo aroorta aan ku soo tooso in airportkii Hargeysa awoodii maamulkii diyaaradaha lagu soo celiyay sidii heshiisyadii hore ee la saxeexay ay ku saxeexnaayeen ee laba madaxweyne hore ay saxeexeen saddex madaxweyne laba madaxweyne oo Soomaaliya iyo madaxweynihii Somaliland ee markaa joogay raganimada taasay ku jirtaa wanaagu kaasuu ku jiraa isu soo dhawaanshuhu kaasuu ku jiraa annaba guddi waanu leenahay annaba diyaar baanu u nahay annaba waa soo dhawaynaynaa haddii cidi sii durkanayso wada hadallada waxaan leenahay Soomaaliya sii durkanaysa ilaahay waxaan ka baryayaa in ummadahaas dadka degan geeska Afrika ilaahay nabadgelyada u soo celiyo oo ummadaas af Soomaaliga ku hadasha inay isu soo dhawaato qalbigoodu isu soo dhawaado wanaagoodu isu soo dhawaado heshiisyadu isu soo dhawaadaan laba daloo jaara oo aan midna midka kale lahayn oo midna midka kale xukumayn inay ilaahay ka dhigo halkaas dantu ku jirtaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh